isbedelada waxaa u baahan nolosha aadamaha. Mar walbana waxaad u baahan tahay inaad hesho waxa aad haysato wax ka duwan. Haddaba wadamada dunidu waa kuwo ku kala duwan cimilada iyo goobaha ay ku yaaliin. Haddaba waxaa jira waxyaabo ay ka midaysan yihiin oo ay muctaad tahay in uu helo wadan waliba, sida habeen iyo maalin. Laakiin waxaan kuu soo gudbinayaa 6 wadan oo dunida ku yaala kuwaasi oo aan helin marnaba wax habeen la yiraahdo oo qorraxdu ayna ka dhicin. Haddii ay tahay markaagii kuugu horeysay ee channelkan, subscribe saaro si la mid ah, la wadaag muuqaalkan saaxiibada kale si ay u gaarto xogtan. Norway, May ilaa iyo Luulyo 76 maalmood ma jirto wax la yiraahdo habeen oo qorraxdu ma dhacdo, dadkuna waxay u socdaan sida maalintii oo kale xitaa habeenkii. Novanto, gobolka waqooyi ee wadanka Canada, 2 bilood qorraxdu ma dhacdo, sidoo kalena 30 maalin oo xilliga jiilaalka ah ma jirto wax la yiraahdo maalin oo waa mugdi. Markaad eegto gobolka Novanto, Iceland, jasiiradda ugu weyn Yurub marka laga reebo England, sidoo kale waxaa loo yaqaanaa wadanka kaneeco la'aanta. Bisha June qorraxdu ma dhacdo oo habeen iyo maalin waa mid isku mid ah. Barrow ama Alaska, laga bilaabo bisha May ilaa iyo Luulyo waxay tahay mid ayna qorraxdu ka dhicin, dadkuna waa kuwo u soo dalxiis taga iyaga oo wadaagaya sheekooyinka. Finland waa dhul ka kooban harooyin iyo jasiirado oo markaad eegto qaybo badan oo ka mid ah wadankani ma lahan wax la yiraahdo markaad eegto habeen oo waxa ay ku nasanayaan ama ay helayaan cadceed diiran. Dadka dalxiisayaashuna waa kuwa aad u jeclaysta xilligani oo kale. Sweden, May ilaa iyo August waxaa ka jira qorrax markaad eegto xilli dambe dhacda, waxayna soo baxdaa ilaa iyo 10 barqanimo. Sweden, qorraxdu madoobaad ayaa muddo 6 bilood ah. Saaxiib, waxaan kaa codsanayaa haddii aad dhammaadka muuqaalka ila soo gaartay inaad subscribe saarto channelka si la mid ah aad muuqaalka like saarto. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Waxaan kuu ballan qaadayaa inaad halkan wax aad ka faa'iidi doonto.